السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء أقوانصور لاين أكاديمي. عشان كلام كتير كورسين جرامر كهيد. عشان كده ما توحين كهذا دونا present simple negative. present simple tennis أينو عشرين هرق صارقني. طيبي سكر دوبي كصارقني. وحلو استعمالين صارقني. ما توحين هرك دونا present simple negative. present simple marka uu yahay diidmada jumladaha diidmada ee present simple kaas aynu sameyn doonaa labadii qaybood ee FTP iyo main verb-ko waynu ku sameyn doonaa waynu faahfaahin doonaa ee ku soo dhawaada casharka. The present simple negative jumladaha diidmada ee present simple-ka casharadii hore waxaan kaga soo hadlay present simple-ka jumlado affirmative ama hadal caadi ah oo present simple ah soo sameynayni waxaan u kala qaybinayaa dad xasuusta present simple-ka laba qaybood oo kala guud ama verb-kiisu laba qaybood oo qaybsamayeen FTP iyo main verbs ama action verbs ka wax loo yaqaan marka jumladii nooca ah sidee baynu uga dhigaynaa negative statements ama negative sentences ama sidee baynu sameeynaa present simple negative oo diidma jumlado present simple haddana at the same time jumlado diidma jumlado present simple haddana at the same time maxay diidma ah oo ay ka dhadhamayso ama ay ku jirto diidmo to make negative sentences in the present simple not is added after the verb si aynu markaa qaybtii verb to be ga ahayd ee present simple ka aynu uga dhigno oo aynu to make negative sentences in the present simple si aynu u sameyno jumlado negative ah ama diidma ah oo qaybta verb to be ga ama jumlado negative oo verb to be oo present simple not is added after the verb verbkii verb to be ga ahaan not xagga daba laga daray he is not a teacher he is not a student I am not a doctor. We are not busy. I am not a teacher. He is not a doctor. She is not a nurse. We are not happy. We are not busy. They are not hungry. Saasaan sameynaa marka jumladahaasoo verbkii verb to be ga ahayd jumlada ku jiray ama present simple ka ahaa ayaan xagga daba waxaan kaga daraynaa not aynu kaga daraynaa laakiin hadduu main verbku yahay maxaa dhacay for the main verb ama for the action verbs haddii uu action verbs yahay oo jumladu ay action verb tahay present simple the auxiliary verb do not or does not is used waxaa la isticmaalaya auxiliary verb ka ah do not ama does not baa la isticmaalaya negatives with the verb to be negativeski verb to be ga habayno eegno aan ku horeyno the verb be ama verb to be ga takes the same form in positive and negative sentences isku qaab un bay noqonayaan oo verb to be gu markuu negative yahay iyo markuu positive yahay jumladiisu waa isku mid waxa kaliya ay ku kala duwan yihiin waa not bay ku kala duwan yihiin the only difference is adding not farqiga kaliya ay ku kala duwan yihiin jumladaha hadalka caadiga ah ee verb to be ga present simple ka iyo jumladaha negative statements ka ee diidmada present simple waxa weeye not un baa ku jirta laakiin waa isku qaab tusaale maxaan lahaa I am a doctor hanry marka negative tahay I am not a doctor she is a doctor she is not a doctor he is a doctor he is not a doctor it is a doctor it is not a doctor we are doctors baan lahaa hanry imika we are not doctors they are doctors maxaan lahaa laakiin waxaan oranaya we are not doctors they are doctors they are not doctors marka maxaan soo kordhiyo kaliya not hadda xasuusta casharkeen hore waxaan idhi verb to be ga markaan sameeyno waxaan sameeynaa subject-ga iyo verb to be iyo object-ga ama rest of the sentence laakiin marka maxaan idhi subject plus be plus not iyo rest of the sentence I am a teacher I am not a teacher he is happy he is not happy not uma soo kordhiyo marka negative saan uga dhigo marka bal example ka aynu tusaalaha hore u galo oo aynu kusii socono casharkeen example tusaale I am a farmer I am not a doctor I am a student I am not a teacher she is not my sister they are not students we are not twins they are not Somalis you are not a cook dhammaan jumladahan waa maxay waa negative statements ama waa negative sentences oo present simple ah waana verb to be ga markaa siiqadan bay raacayaan mid walba siiqadaa ka eeg I am a farmer anigu beeroolaan ahay I am not a doctor anigu mehi maxay beeroole mehi waa subject am plus not iyo intii kaloo soo hadhay marka hore maxay ahayd I am a doctor maxay soo kordhinay sida negative uga dhigno not I am not a doctor I am a student I am not a teacher marka hore maxaa la tusaalahaan I am a teacher imika maxaan si aan diidmo uga dhigo I am not a teacher she is not my sister walaasha iyadu maaha they are not students iyagu arday maaha we are not twins anagu ma nihin mataano they are not Somalis iyagu Soomaali maaha you are not a cook adigu matid cunto kariye matid marka saasaynu sameynaa jumladaha negative statements ka ee present simple ka weliba ma ka yihiin maxay verb to be ma ka yihiin aan hore ugu sii socono oo waxaynu raacaynaa marka qaabkaasaynu raacaynaa inagoo sameynaa subject-ga ugeena verb to be gii munaasibka ku ahay raaci xagga daba ka raacayna marka verb to be ga not
jumladda intii dambe soo hadhayn ay sameeyno she is not a teacher I am not a student we are not soldiers ama we are not policemen asoo sameeyna marka jumlada aan hore u sii gal waxaan imika galaynaa negatives with the main verb ama negatives with the action verb negative ka action verb ka present simple ka saynu sameeyna jumladaha present simple ka ee simple present ka aynu doonayna negative ka dhigno waliba verb koodu yahay main verb iyagana maxaynu raacaynaa ama qaab nooc ma baynu sameeyna iyagana qaabkan baynu sameeyna balayna eegno for the main verbs do not or does not goes before the verb to make negative markaynu joogno main verbka ama main actions ka markaynu joogno ficilada caadiga jumladaha le markaynu joogno present simple ka xaq hore waxaynu ka raacaynaa verbka maxay do not or does not marka way kala qaadanayaan xaq hore waxaan ka raacaynaa verbka do not ama does not marka say kala qaadanayaan iyo qaabkaynu sameeynana xaqan baynu ka eegaynaa how to form see loo sameeynaya subjectigi baa kaynoo yaala do not ama does not baa ku xigaya verbkii caadiga ahaa jumlada ayaa ku xigaya dadna waxa u dambeynaya maxay tusaale ahaan jumladu marka hore maxay ahayd I work in a bank ama we work in a bank they work in a bank you work in a bank she works in a bank he works in a bank ama it works in a bank jumladahaas markii hore waxay ahaayeen positive ama waxay ahaayeen affirmative so negative uga dhigna maxaynu soo kordhin do not ama does not ayaynu verbka xaggii hore ka soo marnay haddaad xasuusato markaynu ka sheekeynay verb to be ga cashkeena gudihiisa qaybtiisa hore xaggan baynu raacinaynay oo am not ama is not ama are not bahayd oo verb to be ga xagga dambe ayuu ka raacay notku laakiin marka main verb kala joogo xagga hore ayuu not ka soo raacaysa waxa soo raacaysa do not ama does not oo I iyo we iyo you iyo they maxaa odhanaa do not he iyo she iyo itna maxaa odhanaa does not qaabkaasi markaa u samaynayna tusaale ahaan I don't work in a bank we don't work in a bank they don't work in a bank she does not work in a bank he does not work in a bank it does not work in a bank examples but tusaalaha eeg you don't have a computer she does not live in bro we don't start work at 8 a.m. she does not have a car I don't like apples saasaynu sameynaa marka iyagana jumladahan inagoo isticmaalayna do not ama does not isticmaalayna sad inooga muuqato jumladahan dhammaantood verbka ama main verbska jumladahan ku jira waxaa xag hore ka maray do not ama does not kan waxaa xag hore ka maray do not kan does not baa ka martay do not baa kana xaggan ka martay kana does not verbkan oo like kana iyadana xag sadarkiisa xag hore waxaa ka maray do not baa ka maray marka jumladaha qaabkaas aynu sameynaynaa inagoo isticmaalayna do not ama does not tusaale maxaan yidhi you don't have a computer midihid adigu he does not live in Burco kuma noola we don't start work at 8 a.m. shaqada 8 ma bilowno she does not have a car iyadu gaari ma laha ama gaari ma haysato maxaan yidhi I don't like apples tufaax ma jecli jumladahan dhammaantood waxay ahayn present simple waxaynu ka dhignay negative bayn ka dhignay marka qaabkaasaan raacayna subject plus do not verbkiyo have plus computer ama main verbkiyo have plus computer kana maxaan yidhi waa he oo subjectkiya does not plus leave of main verbkiya ama action verbkiya iyo subjectigii qaybtiisii dambe ee ficilka helaysay waa objectigii subjectigii oo we ah do not main verbkii ama action verbkii iyo objectigii subjectigii does not main verbkii oo have ama action verbkii oo have iyo objectigii jumladan yada waa subjectigii oo I do not verbkii ama action verbkii haye iyo objectigi marka saasaynu sameynaa waxaan raacaynaa xeerkan odhanaya subjectiga waxaad u geysaa do not ama does not verbkii caadiga ah ku xigsi jumlada qaybtiisa hadhay ku xigsi tusaalaha subjectigu toddobadan bay noqon jireen subject pronouns dad xasuusto I iyo we iyo you iyo they iyo he iyo she iyo it waa haddii pronouns yihiin haddii magacyaal yihiin waxay noqonayaan magac singular oo qof leeyahay ama shay leeyahay ama meel leedahay ama magac plural noqonaya hadduu plural noqdo wuxuu qaadanayaa do haddii uu singular noqdo does not buu qaadanayaa haddii uu pronoun yahay afartan mid kamid uu yahayna do not buu qaadanayaa haddii uu saddexdan mid kamid uu yahayna wuxuu qaadanayaa does not I do not work in a bank we do not work in a bank they do not work in a bank he does not work in a bank asaan sameynaa ama I don't play football I don't watch TV you don't read your lessons you don't go to school they don't play football he does not like apples she does not go to school it does not drink milk qaabkaas aynu samaynayna oo do not iyo does not baynu isticmaalaynaa markaynu joogno main verbka ama action verbska present simpleka markaynu joogno verb to be ga present simplekana waxaynu isticmaalaynaa am not is not iyo are not
oo am iyo ECR kii ayuu bayna xagga dambe kaga daraynaa ama fib to b gii ayuu bayna xagga dambe kaga daraynaa not cashkeenu maanta halkaas ugu joogayaa waa inoo casharka ku xiga. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبت قليو.